war aan hadda heleyna ayaa waxay sheegayaan in shiiqa loo yaqaano Sheekh Shantaa isla markaana caan ka ah mareegta social media. Shiiqan ayaa dhawaan caan ka noqday mareegta. Hadda waxaa la sheegayaa in lagu xiray saldhig ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir xilli uu ku sugnaa gudaha isbitaalka weyn ee Digfeer. Shiiqan loo yaqaano Sheekh Shantaa ee dhaliisha badan ayaa hadda waxaa xireen ciidamada booliska ee gobolka Banaadir kuwaasi oo u haysteen dambiyo badan oo ka galay. balse xogta ayaa waxaa noola xaqiijiyay in loo haysto Sheekh Shantaa xilli oo muuqaal iska soo duubay isla markaana uu ku yiri degmada Hodan xaafad kamid oo loo yaqaan Taleex in ciyaal weerada ay lacaga baada ay ka qaataan gawaarida waaweyn xamuulka. hadalkaas oo ahaa gef iyo meel ka dhac ciidamada booliska ayaa hadda waxay ku xireen saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir. xiritaankiisa ayaa dad badan aad ugu farxeen maadaama uu ahaa shiiq waxa uu doono ka sheego mareegta uu ka isticmaalo barta social media kaasi oo aan ka gamban waxyaabaha qaar. inkastoo ahaa shiiq muddooyinkii dambe lagu barta dhaliisha caayda iyo sidoo kale erayo kale oo gef u ah, laakiin hadda ayaa xogta waxay sheegaysaa in lagu xiray saldhigga degmada Hodan xilli uu ku sugnaa isbitaalka weyn ee Digfeer isla markaana uu joogo howlo caafimaad. xogta ayaa waxay sheegaysaa Sheekh Shantaa inuu qaadan doono xabsi dheer inkastoo ay jiraan wili uu agdhow shiiqa isla markaana ku hoolan inay soo daayaan, laakiin shiiqa ayaa baaritaan dheer hadda waxa uu ku marayaa saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir xilli loo haystay eedaamo iyo sidoo kale inuu dambiye ka galay ciidamada booliska isla markaana ciyaal weerada oo ku sheegay inay lacaga baada ka qaataan gawaarida waaweyn ee xamuulka ee xaafadda Taleex iyo sidoo kale degmada Hodan. laakiin hadalka ayaa waxa uu ahaa mid gef ah oo ciidamada booliska ay aad uga xanaaqeen. hadda wuxuu ku xiran yahay saldhigga Hodan maadaama loo haysto dambiye iyo sidoo kale dacwooyin hore. shiiqan ayaa sidoo kale waxa uu gafa dhalinyarada caanka ka barta social media kuwooda naafada ee alle oo tiri lixaadkaasi oo sheegay in lixaadkii ka maqnaayeen erayaan ku wanaagsaneen si live uga soo tabiyo goobta uu ka isticmaalo mareegta social media ee YouTube iyo sidoo kale Facebook-giisa. Shantaa sidoo kale waxaa dhaliilsanaa culimo badan habka uu u tabinayo diinta iyo sidoo kale habka uu la tacaamulayo bulshada ayay kuwa badan aad uga soo horjeesteen